faydin kulanteen haasaa wakadiisiyo kaftan la isla beegsaday igu keen jacayl dhaba igu keen jacayl dhaba waxaa la yidhaahdaa magacaygu waa Bashiir Faarax Guray waxaan ahay kabanayste jooga magaalada Garowe caasimadda Puntland xirfadaydu waa inaan kabanka tumo heesaha la xameeyo kuna luuqayo madaayo kamadaalo jacaylkuna imadaayo haddadiido diiftiisu imadayso wanku doonan weligayba duntuna igu ka xiran 78 ayaan bilaabay markaan horta inaan barto waxaan islaahatun waqti badan bay igu qaatay barashadiisii marka ka bacdi bahalka lagama najaxo sidiisa waa jaamacad iska furan qof kasta mar hadduu soo dhex galo heer buu ka taagan yahay mooyaane wax la dhamayn karo ma kalsoonida kalgacalada ku abuurmay aragtida horta bahalka sidiisa ka soo gaarista waxa ahaa ninkaan ka soo gaaray Allahu naxariisto Yaasiin Axmed Digfeer laakiin macallinkayga runta aan ku sheegi karaa waa nin imika magaalada Qardho joogo la yiraahdo Ismaan Caynab Samatar oo dhalinyarada bariga ahayd horseedna ahaa wuxuu macallinkaygu ahaa soo kabanka matumo uu heesay darbugadana way tumi jir marka kabanaysaha macallinkiisu waa qofka u heesa dakhar caasha waqtiisa igu daan dawadeedu kugu dayran waxaan waqti lumis ka ahayn intii hore ah oo caqabada oo igaga timid ma jiro magaalada Xamar baan joogay markaa barashadiisana ana xor u ahaa cid igu maxaan ku raahday igu takoortay ama yiraahdo iska daa sida xaqiiqada marmar baa daris baa jira moogtahay xaafadaan deganay daris baa jira oo waxaan markaa xiisaynayso adigu inaad daqiiqad fadhiday kula ahaan mayso dadkii seexan lahaa guriga kugu xigay maxaan ku lahaa jiifayna shaqadii baa dhibaysa marka way oran jireen iyo xilligan waa iska saxadsido iska deysid aad waqti kale tumatid laakiin caqabad kale iguma imanin sida jaawageelo onjala lagudo jiila labariyo dajal ku raagto ilmihiina jabadkiyo halkay roogtay kaga timidee waxaan leeyahay horta ninkii dhalinyaro ah oo maxaan ku raahdaa fursad u haya horta waxaan marka ugu horeysa wuxuu ka luminayaa waqti fara badan buu ka luminayaa waayo waxa laga yaabaa aqoontii kale aad baranaysay inuu ka habsaamiyo ama maxaan ku raahdaa shaqo muhiim ah oo kale oo aad qabsan lahayd aad sidaa ka jeclaysato waxaan waxa weeye mar haddaad dhex gasho uu ku dhadhamaya mar hadduu ku dhadhamana salkiisa gaar baad oranaysaa marka waqti fara badan waxa laga yaabaa inaad lafahaaga inaad qadaysay iyo inaad qadaynin aad ka fakarto goorma ugu dambeysay marka waxaan oran lahaa baro laakiin marka ugu horeysa mustaqbalkaaga kala dhiso marka mustaqbalkaaga kala dhisato ka bacdi waad qabsan kartaa wixii rag yaqaanaba inaad barato adayba waajib kugu tahay